سائل كان وهري وبليه السلام عليكم ورحمة الله. شيخ الله كحفديه سؤال شيء وحي تهي حديث بقى إن بالكست سدح بري لغا صومو marka xilli kasta oo ay suuro gasho bisha gudaheeda saddexda bari ma ka soomi karaa ise waxaan ilaalinayaa saddexda cisho xadiis ku tilmaamay oo ayamul biidka ku calisho sheekh su'aashaydu waxay tahay xadiis ba ahaa in bil kasta saddex bari la soomo marka xilli kasta oo ay suuro gasho bisha gudaheeda saddex bari ma ka soomi karaa bismillahir rahmanir rahiim ha bil kasta saddexda bariye laga soomayo adiga ama xagga hore ka soon ama dhexda ka soon ama aakhirka ka soon saddex bariyo bisha kamida inaad soonto laakiin waxa si fadli badan saddexda bariye soomayso inaad ka dhigto ayyamul biid maalmaha cadcad oo maalmaha dayaxu buuxo oo ah 13aadka 14aadka 15aadka inaad saddexda bari ka dhigataa si fadli badan laakiin hadaan saddexda ka dhigina bisha saddex kale oo kamida soonto yaani waxa weeye saddex bari ninkii bisha ka sooma waa soo galaysa waana furantahay macna naam jazakallahu khairan sheekhana saailkan wuxuu leeyahay sheekh qof jaad ka shaqeeya baa ay afuriya afurka muxaram ba soonkaygana wax nuqsaan ama soo gaaraya ruuxa jaadka ka shaqeeya ama qaadka ka shaqeeya طبعا shaqadiisu waa xaraan horta waxa uu ka shaqeysanayo waa maandoori isaga iyo midka khamrada ka ganacsaday waa isku mid haduusan qaadkuba sii darnayn shariicada rabbi waa isku xugum nin khamro ka ganacsada hadduu ku afuriyo khamradiisii wixii ka soo baxay ma ku afuraysa ma Soomaali baynu nahayo khamrada waynu kala fogna waaba gaal baan dhahnaa ninka khamrada laakiin qaadku waa inaga la gedisan taana jahli ya qoondara keenaysa ee sharcan waxay ku kala gedisan yihiin malaha sidaas daraadeed ruuxa kasabkiisu uu yahay oo qaad yahay ama sigaar yahay ama riba yahay oo meelaha xaraanta ah kasabkiisu ka soo galo ruuxaasi xoolihiisu waa xaraan wabitaali lagulama mucaamaloon karo lagama qaadan karo afurkiisa lama cuni karo hadiyadiisa lama qaadan karo sooma marka ha noqonin 100 sano waqti ku afur yana kugu dhahay Allahumma hadi xaraanta soo gasha haday xalaali ku dhex jirto oo midalan meel kale wax ka soo galaan buu leeyahay masaadir kale oo inka meel ka soo wax ka soo galaan baa jira xoolo kale oo badan oo xalaal u leeyahay markaas oo kale hadaad xalaal miiranayso waa ku fiican tahay inaad saga tagto laakiin markaas oo kale waa xaraan lama dhihi karo waxa dhici karta inaad xoolihii intii xalaasheed ay ku jirtaa dhici karto sababtoo culimadu waxay dhahaan haday xoolihiisu xalaal u badan yihiin xaraanta yartay ku jirta markaasi اعتبار ma laho waa la mucaamaloon bisharti in wax marka aad ka qaadanaysa aynan ahayn oo aadan ogeyn inay tahay qaybtii xaraan tahay yani ama ma ogid beelay ka soo jeedo ma xalaashi waa xaraantiba ama xalaashi inay tahay baad og tahay marka waa la mucaamaloon karaysa waxa kale oo iyadana mudan in laga soo reebo ruuxa ka afuraya ama xoolihiisa qaadanaya qaadka ka soo baxay ama xaraanta ka soo baxay haduu miskiin yahay meel kale iyo uusan haysanin wax kalena haysan asaga waa loo ogolay sababtu maxay tahay laana miskiinku xoolahan meesha uu ku hayo ninkan odayga miskiinkaaba iska wada laba baab xoolihiisii sababtu waxa weeye haduu toobad keena hadda oo inay yiraahdo warqaadkii waan ka toobad keenay sigaarkii waa ay kan xoolahayga ha loo taliyo intaan ka qaadno baan masaakiinta siin lahayn soo saasma marka miskiinku isaga waa cuni karaa masaakiintu meelaha lagu bixiyo kamid tahay masaalixda caamka baa iskale
yani danaha guud ee muslimiinta xoolaha noocaas oo kale iska leh masaakiintuna waa ka mid marka hadduu miskiin yahay meel kalena uusan haysanin isagu wax weeyaan ha ku afuro hadduu helana ha ka qaato wuxuu ka helo laakiin hadduusan miskiin ahayn maya lagama afuri karo xoolihiisana lama qaadan wallahu aclam jazakallahu khayran sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan ku soomay waddan dadkiisu yahay 90% gaalo cawradooduna ay bannaanka taallo haddaba indhahaygu waxay ku dhacayaan cawradooda marka soonkayga ajirkiisa wax ma u dhimaya arrinkaas wax kasta oo xaraan ah oo xubnahaagu sameeyaan soonkaaga waxbay u dhimaysaa ishaadu xaaraanta ay daawanayso dabcan ajirkii soonkaaga ay ka go-anta carabkaagu dembiga uu ku hadlayo iyo wuxuu samaynayo waxay ka go-an tahay soonkaagii gacmahaaga iyo lugahaaga iyo xubnahaagu wixii ay sameeyaan ajirkaagay ka go-an tahay intay dooni ha dhannaato waddan gaalaan ku dhex noolahay dadkuna waa wada qaqaawan yihiin ayib cudurdaar ma kuu siinaysaa inaad iska daawato ya maya hadrinta karaankaagaa isha laab waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna mu'miniinta rag iyo dumarba alla wuxuu leeyahay ha loo sheego ha la gaadhsiiyo inay indhaha laabaan marka indhaha laab inta tabartaadaa dadaal talabaad weeyaane nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam xadiidkii cali bn abi aalib fiirada ugu horraysa adaa iska leh fiirada ugu horraysa dhagta hore adaa iskale lagu qori maayo allahuma inaad uun yani kusii macaansato ood kusii waddo meesheeda wa laakiin marka ugu horraysa isha kaaga dhacdo taa iyada la qori maayo adaa iska leh amaa ta labaad ma lihid waa korkaaga iyo wixii ka dambeeya marka dadaal intii tabartaada insha allahu tacaala wallahu aclam sheekh saciidkana wuxuu leeyahay sheekh qur-aanka waxaan ku akhriyay qiraa'ada camar ayaan ku bartay kuna akhriyaa mar walbana waxaan ku akhriyaa qiraa'adaas xafsaha iyo camarkana meel ayay ku kala duwan yihiin midee ii fiican buuye midkee ii fiican qur-aanka qiraa'aadka mutawaatirka ah ee qur-aanku ku sugan yahay midaad ku akhridaba waa tii kale waay dhammaantood way sugan yihiin qur-aankana waa lagu akhrin karaa midii aad ku akhridana ajirkeeda waad helaysaa tii kale unbay la mid tahay wax fadli ah oo hadda u kala dhexeeyaay ma uu jiro waxa uun muhima midda aad ku akhrinayso inaad itqaaniso inaad sugto oo aadan galab ahayn yani dadka qaar baa waxay ku leeyihiin khaasatan macallimiinteennii hore muxuu ahay camraan akhrinahayaa buu leeyahay xafsihii iyo camrihii iyo waxbuu isku dhexqasaya marka inaad lagu isku dhexqasto lama ogola leanna wixii meelay ku kala gedisnaanayaan laakiin haddaad midaad itqaaniso akhri haddaadan itqaaninaynin camraha xafsaha misxafka ku qoran akhri markaas hadda waxaa kaloo la heli karaa camraha laftiisa muxuu ahay masaaxif baa jirta masaaxiftiisa hadda waa soo baxeen waa la heli karaa marka dhib male labada kaad akhridaba ajirku waa isku mid insha allah wallahu aclam jaza allahu khayran sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay aabbahay baa soonka ka hor xanuunsaday xanuunka dhiigkar weeye soonkii kadibna wuu dhintay miyirkiisuna waa tegtegayay markaa maxaan bixin oo lagu yeelanayaa ruuxu hadduu ramadaankii ugu soo galo xanuun ugu soo galo ramadaan oo dhan xanuunsanayay isagoon caafimaadinna sidaa uu ku geeriyoodo wax soona laguma laha wax fidyaana lagama bixinayo lianna lagumaba yeelaninba laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascahaa maba uusan awoodinba mar hadduusan awoodin bimacnaa fariidadaasi laguma laha
haddii iyadu meesha ka baxdo wixii bedeli lahaa oo fidye ana laguma laha allah u naxariisto laakiin ruuxa wax lagu leeyahay laga soomi ama fidye laga bixin waa ruux ramadaankii xanuun uga tegay xanuun markuu uga tegayna jaanisuu ku qalleeyo helay oo caafimaaday oo qallayn waayey kaas waa lagu yeeshay markaa waa lagu leeyahay ayib haddii lagu yeeshay isagoo lagu leeyahay uu dhintay waa dayn waa in laga gudo xadiidkii nabiga ku fadhiya sal alla alay wasalam xadiidu caaisha fi saxiixayn ee rasuulku yuhi sal alla alay wasalam man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuh ruuxii dhinta isagoo soon lagu leeyahay ruuxa qaraabadiisaa ka soomaysa marka waa laga soomi calaa ra'yi oo culimmada qaar ka mid a ay qabaan waay xadiidkaana ay u daliishanayaan qaarna soonka nadarkay ku khaas yeelaan sida imaam axmed iyo keyrkii haddii laga soomi waayana markaa waxay culimmada qaarkood leeyihiin fidyaa laga bixinaya iyo raashiin waase goorma waa ruuxii xanuun uu uga tegay soonku xanuunkiina ka roonaaday jaanisuu ku qalleeyo helay qallayn waay ama hadduu ku geeriyoodo xanuunkii uusan kaba kicinba jaanis qallana uusan gaadhinba helinba markaa waxba laguma laha sida ay qabaan culimo fara badan waana sida aada moodo dilada inay waafaqsan tahay way xoog badan tahay wallahu aclam sheekhna wuxuu leeyahay saa-ilkan sheekh qof ayaa wuxuu ku nool yahay meel islaamka ku yar yahay wuxuu soo gataa hilib digaag ciddii gowracdayna lama yaqaano marka sheekhow hilibkaas ma la cuni karaa waxay ku xidhan tahay hilibka gowraciisa ama digaag ha noqdo ama xoolaha ha noqdeen waxay ku xidhan tahay meesha aada joogto xoolaha ama digaagga gowracooda ma in la gowracay u badan tahay mise inaan la gowracin laabudda macluumadaa inaad hesho waa meesha aada joogto hadday u badan tahay inaan la gowricin oo la ceejiyo ama luqunta la maroojiyo ama mishiinba ay jarto hadday sidaa u badan tahay meesha aada joogto asalku waxa weeye hilbuhu waa xaaraan markaa keliya waxaa laga soo reebiyo xalaal kuu noqonaya waxaad ogaato uun in dariiqo sharci lagu gowracay oo muxuu ahaayey ay kuu caddaato haalibku hadduu yahay inaan la gowricin haalibku waa xaaraan iskama cuni kartid haddii meesha aada joogto sida haalibkii u badan tahay xoolaha la gowraco digaagaha la gowraco gowrac sharciga uu ka jirana markaa haalibkaasaad cuskanaysaayo wixii aada aragto waad iska cuni bismillahi baad dhihi waadna iska cuni marka meeshaad joogtay ku xidhan tahay digaagun layskama iibsan karo wax kastoo muxuu ahaayey layskama qaadan karayo meeshay ku xidhan tahay weliba waxay u baahan tahay in masalada aada looga taxadaro wayaan adduunkii waaba qasmayba adduunkii waa qasmay yacni ma aqaan inaad la socoteen maalmo dhoweyd kenya maxkamad baaba waxay fasaxdayba in hilibka dameeraha la cuno ma la socotaan hilibkii dameeraha in la cuno oo waaba la qalahayaa kawaanaaba hadda loo sameeyey markii horena qarsoodi baaban ku cunaynayba ilahay amarkii intaasoo goor baa la qabtay dameero lasoo qalay oo kawaanada yaalla haddana waxa weeye tiin barihii maxkamad ugu dhufato waxaba la yidhi waaba la cuni kara waxaan ku arkahayay masar waa beled muslima masar waxaan ku arkahayay maalin dhaweyd waxaa la qabtay beer dhan oo dameeraha lagu koriyo kadibna lasoo qalo oo suuqa la keeno dadka la cunsiiyo si qarsoodi ah marka adduunkani waa adduun iimaanku ka tago fasaadsane hilib iyo markay timaado aada loo taxadaro wallahu aclam jazakallahu khayran sheekhana saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh dadka qaar markay ducaysanayaan wejigay masaxdaan maxay ka dhigan tahay marka la ducaysto in gacmaha kor loo taago marka la ducaysanayo waa sunno yacni waxa weeyaan inuu gacmaha ruuxu sidaas yidhaahdo nabigeenna sal alla alay wasalam meelo kale gedisan oo fara badan bay kaga sugan tahay oo tawaatur macnawiya gaadhaysa xadiidka qeybtiisa tawaaturka macnawiga la yidhaahdo waxaa kaloo ka sugan nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka xishoodaa addoonkiisu markuu gacmaha u taagto
inuu gacmihiiyo maran ku soo celiyo allah waa ka xishooda marka asbaabta ducada lagu aqbalay ka mid tahay inaad gacmaha taagato gacmaha hoorsato taasi marka wax weeyaan waa banaanta laakiin markii gacmaha aad hoorsato ducadaada aad dhamaysato inaad wajiga ku masaxdo waad ismarmariso midaasi daliil male بعض الآثار باجرته لكن ما قارسيسنا هيري حجة نقطة مسألة لو دليشده سيداس دراديد ما سقنا ساس دراديد وحويري الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء وحويري لا يفعله إلا أحمق يعني وجهك وكعمها الله مريم مرك دعاء كذب نين نعس باسم يقول نين نعس بمعنى وحوت المامي إني سنة حديثك صارت السقنين عمرك إن أدوتشي مصحدا وما باهنا واد سكتي واد سكتيحو حد وجهك كقد دورته حبنا هاجا كلام بس ويدي زادك ما تقعمها مرمريس يلوغا مركا مسألة مسألة صلي معها مسألة يعني وحوي دليل رسمي على معها والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ قبلنا سائلته وحريده الشيخ وحن دونيا إن اعتكافه وحن كبقيا إنه يجتبه si uusan iga jabin ma isticmaali karaa kaniiniga dhiiga joojiya si aan u i'tikaafo masaladaasi ku saabsan dumarku ma isticmaali karaan maadooyinka caadada dibdhiga si ayna cibaadadu uga kala go'in xajko kale ramadaanko kale waa mas'alo horeysay oo Allah laga yaabo in Allah yaabtaan xataa xilliga ay culimadu ka hadleen xilli aad u horeysay athar baa soo arooray Abdullah ibn Umar waa saxaabi arinta isagoo ka hadlaya oo leh dib male laakiin waa dhaif atharka Abdullah ibn Umar waxay ka sugan tahay Ata ibn Abi Rabah oo taabici ahaa Abdullah ibn Abbas arday u ahaa ilaa waaga waxa jiray maadooyin la isticmaalo dumarku isticmaalaan oo caadada dibdhiga ilaa waqtigaas ay marka culimadu ka hadleen waa ardadii saxaabada waqtigooda culimadeena mucaasiriinta hadda joogta ayaguna way ka hadleen waxay leeyihiin la ba'sa yaani wax dhiba male bay leeyihiin dumarku way isticmaali karaan allahumma hadii dhanka caafimaadka ayna dhibaato la iimaaneen taana waxa la weydiinayaa ahlul ikhtisaaska dhaqaatiirta iyo rijaalul muxuu ahay caafimaadka ayaa la warsanayaa oo la tala la weydiinayaa maadada dhiiga lagu dibdhigayo ama jirka caafimaadkiisa dib u geysanaysa haddii jirka caafimaadkiisa dhibaato u geysanaysa marka lama ogola haddayna jirka caafimaadkiisa dhibaato u geysanayna way isticmaali karaan yaani caadadiina waa ku dibdhigi karaan si ay cibaadada u dhameystaan wallahu a'lam farsaayinkan wuxuu leeyahay ma hukmu man taraka sawma amdan ruuxa soonka kas uga taga xukunkiisu muxuu yahay cadaab buu qarka u saaray khatar buu ku jira laana xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo tilmaamay xadiis Abu Umama wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo maalmaha kamida jooga ayaa waxa ii yimid buudhe laba nin nabiga dhahay sallallahu alayhi wasallam markaasay labada xuduudood i qabteen way kaxeeyeen waxay i geeyeen buur dheer markaasay waxay yiraahdeen buur tanfuul markaasay war ma fuuli karo wanaga ku kaalmeynayna ku bari gantaalayno yaani fuul balay buurti baan fuulay buurta korkeeda markaan joogo baan waxaan maqlay buur sawaxan iyo qaylo iyo cabaad iyo calaacal iyo wax isku dalaysa kaasa waxaan yiri ruuxan maxay ahaayeen markaas waxa la yiri hada awaa ahli naar waa dadkii naarta ku jiray qayladoodii iyo sawaxankoodii waa calacalkoodii waa ka soconay buu yiri waxaan u imid buu yiri haddana oo ii keeneen dad inta boqonta laga xidhay lugta oo kor lagu xidhay madaxoodii hoos u laalaaday qowlalada afkana la dildilaaciyay marka qowlaladii afka waxa ka daadanaya carun
iyo dhiig iyo qashin baa ka socda korna waa u xidhan yihiin madaxoodiina hoos buu laalaaday markaasaa waxaan idhi buuri kuwani maxay ahaayeen waxaa la yidhi kuwani waa kuwii afuri jiray iyadoon la gaadhin xilliga afurka u fiirsada kuwii soon ka tegi jiray maaha ra'sanba kuwii isaga tegi jiray maaha waa kuwii soomi jiray laakiin soonka xilliga afurkoon la gaadhin afuri jiray ayib kii hadduu saas u cadaabay midaan kuba soo leexanin ka war ya la shaka kaasi islaamnimadiisa tiirarkeedii mid ka mid a dunsan waana caasi dambiile ah bacdu ahli lcilmina waxay qabaan inuuba gaaloobi riwaaya can imaam axmed waay riwaaya can imaam axmed caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu leeyahay waa gaaloobaya taariku sawm kaafir buu leeyahay inkastoo riwaayada xooga badani ee ka sugan uu leeyahay ee xooga badan uu leeyahay ma waa muslim caasi maadaama uu tukanayo haddana riwaaya jirta leeyahay uu gaaloobaya marka waa halis soonka in laga tago maaha waa in la ilaaliyo waaba ku fiicannahay saan is leeyahay soomaalidu salaada iyo soonka salaaday dayacid badan tahay soo ma xataa yani ilaa agteena caado ka noqotay oo ninka salaada ka taga lamaana yaabi jira laakiin nin maalin ramadaan wax cunaay markaasi waa kaafir billahi baa la dhihi waa kaafir billahi makaasa dharaar ramadaan booba wax cunahayay ana arkayay kaas laakiin salaada hadduu ka tago xoogaa yani si heerka in lama gaadhsiisnay marka in arkaanta la xifdiyo waa laga maarmaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekhana saa'ilkan wuxuu leeyahay dhiigu ma najaas baa hadduuse igaga daato dharkayga ma ku tukan karaa dhiigga jidhka ka yimaada bini aadamka culimmada badankood waxay qabaan inuu nijaaso yahay waase masale khilaafiya oo qaar baa waxay leeyihiin nijaaso maaha ixtiyaadku wuxuu ku jiraa hadduu maradaada gaadho iyo hadduu jidhkaaga gaadhoba in la iska dhaqo leanno waa sida culimmadu u badan yihiin walow masaladu ijtihaadiya tahay khilaaf ku jiro culimmada qaar ka midna u daliishanayaan xadiidkii abu daawuud iyo ku yimi ninkii saxaabiga ahaa ee isagoo dhiiggu ka daadanaya iska tukanayay iyo saxaabada sidoo kale aahaaru bukhaari keenay oo iyagoo maryahood iyo jidhkooda dhiiggu ku yaalay tukan jireen culimo waxay qaar ka mida leeyihiin dhiiggaasi nijaaso ma aha laakiin waxay u badan yihiin inuu nijaaso yahay saas daraaddeed waa in la iska dhaqaa habboon khuruujan min alkhilaaf واحتياطا للدين والله أعلم. جزاك الله خيرا. شايف وحول شيخ سليم سلا إلى الرياء. وسؤال مهمة سين سجى إلى الرياء واستستسك إن عمل كاجي واحد سمين يسو نيدو كهالون وإلهي درتي هذا نصمين وأدنى كلا هذا هل لو مقلو لقى شيء هل لو أمانو هذا يسوق شو وحديث كي نبي الله تبارك وتعالى أولها أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا وحنا هاي mid ka maarmo ka kaaftooma waxyaalaha la wadaago man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka ruuxi amal sameeya amal kana aniga cid kale ka dhaxaysiya anigu isaga iyo wixii uu wadaag shirkigiisa waa ka tagay kuma jiraan saas daraadeed amalku meelaha uu dhinto ayaa waxa kamida in ikhlaasku waayo shaytaankuna meelaha ugu khatarsan bini aadamku ka soo galay kamid marka hore wuxuu isku dayayaa inuu amalka iyo cibaadada dhanba ku garamariyo inaadan soo baleexanin buu isku dayayaa hadaad ka rayso oo ka adkaato oo aad amalkii gasho ka hari maayo waa ku soo galaya markaas wuxuu isku dayayaa inuu niyadaada haleeyo kharibo markaas wuxuu ku leeyahay muxuu ahay maarta dana kaliya masaalix kale ku soo galinay marka mar walba inaad la dagaalanto u baahan yahay oo ku dadaasho amalkaaga inaad ilaahay darsi ka dhigto tabaaraka wa taala maxaa kuugu kaalmeyn kara waxa kuugu kaalmeyn kara amalkaagu inuu ikhlaas iyo alla dartii noqdo waxyaalaha kuugu kaalmeyn kara waxa kamida in aad mar walba fiiriso cid aad hor taagan tahay cadamadiisa
iyo cidda aad istusayso xaqirnaantiisa sooma cidda aad istusayso waa makhluuq bini aadan oo liita cidda aad hor taagan tahay ee camalkan aad wax kaga rabtana waa allaha kownkan abuurtay sooma yani mujarrad qalbigaaga ay gasho waxan kadaad ku ag fadhiyo ee istusaysaay waa wax yar yar oo wax qiimo leh ma bahaba wax laga raadsado ma marka qalbigaaga yani wuxuu u baahan yahay inaad shaqo ka qabato mucaalajayso waana hawl adag salafku waxay dhihi jireen ridwaanullaahi calayhim shay aanu isku dayno nu mucaalajayno shaqo ka qabanno niyada noogu adkaatay niyada iyo qasadka qalbiga noogu adkaaday marka waa arin shaqo adag u baahan allah tabaaraka wa tacaala camalkaaga inaad u khaalis yeesho adoomada inaad isaga jeesato waxa aad ka helaysaa adoonkan miskiinka ah inaad fiiriso qiimo darradiisa inaad allah tabaaraka wa tacaala jaliilka afiiriso waxa aad ka rabto inaad fiiriso khasaaraha ku soo gaadhaya in qalbigaaga xagga rabbi kaliya u jeediso arrimahaas oo dhan baa insha Allah tacaala kuugu kaalmeynaya wallahu a'lam jazakallahu khayran sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum maalin soon ah ayaan la kulmay xaaskayga anoo halmaansan laakiin xaasku way ogeyd wayna ii aamustay oo iima sheegin marka ayadii ogeyd maxaa ku waajibaya adigana maxaa kugu waajibahay mala gabadha masaladeedu soo raadinaya isaga tiisiina waa halmaamay ninkaas asaga aan ku bilaabe maadaama isagu gabadha ka bilaabay isaga aan ka bilaabay asaga ishalmaamay ee xaaskiisa u galmooday isagoo ishalmaansan culimada qaar ka mida waxay leeyihiin sida cunidda iyo cabitaankay la mid tahay oo soonkiisa wuu wadanayaa qiyaasan cala alطacaami waasharaab iyo sidoo kale qaacidadii kulliga ahayd oo halmaanka ilaahay ummaddan uma qabto rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhta'naa alla wuxuu yidhi kamaa fii saxiixi muslim qad facaltu waan yeelay allow halmaan ha noo qabanin ismootiisna ha noo qabanin alla wuxuu yidhi waan idinka yeelay taa iyada marka sidaa culimmada qaar baa marinaya waana sida xoogga badan waaye halmaan shaygii soonka jebinayay hadduu ruuxu u sameeyo noocuu dooniba ha noqdo ruuxaasi soonku ka jabi maayo saasaa masalada ugu xoog badan tan kale iyo xaaska u aamustay ayadu marna waa dembiile marna soonkii uu ka jabay laakiin maxaa ku laasimaya culimada qaar ka mida waxay leeyihiin kafaaradii baa ku laasimaysa waa sida bacdu ahlicilmi ay qabaan hadday tahay daakiro tahay mutaawicana tahay mutaawica waa haddaan la qasbin waayo yani hadday xusuusan tahay isla markaana uusan qasbin oo barnaamijkaba iyadu wadatay ama ay wax ka waday marka isaga ah kafaaradii waa lagu leeyahay bay culimada qaar qabaan oo in ay qoor xorayso ramadaanku markuu baxo hadday qoorta weydo hadda lama mehele ramadaanku markuu baxo 2 bilood oo isku xiga inay soonto hadday kari weydo in 60 miskiin ay quudiso maalinkii ay jabisayna waa inay qallayso isagana hawl adag baa markaa ku furanta intaa waxaa u dheer inay ilaahay dambi dhaaf weydiisato ee toobad keento ya waxoogaagii yarka ahaa ee isaga dhanba sakanada ahaa baa waxaasoo culaysa ka dhasheen ya marka iyadu khaladkay gashay laakiin asagu waa naasiyo waa macduur wallahu a'lam jazakallahu khayran sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh waxaan ku noolahay waddanka USA waxaan wadaa baabuurta waaweyn traaga inta badanna waan ka maqanahay guriga waana shaqo joogto ah in badanna waan waday soonka ma afuri karaa buu leeyahay ruuxa musaafirka ee socotada ilaahay rukhsu siiyay waa iska afuri karaa في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر روحي صوما أما حنون سنيا اسكا أفرو مع المكة لها قليو
safarkaagu hadduu joogto yahay iyo hadduu marmar yahay waa isku mid lianna manaadka xukumku meeshuu ku xidhan yahay waa safar saas daraaddeed dadka safarada joogtada u badan ama taraagyada kaxeeya ama basaska kaxeeya ama bayloodyada maalan diyaaradaha wada joogtada ee safarta ku jira ruqsay haystaan waa iska afuri karaan xilligay jaani salaam bay qallaynayaan taas weeyaan waana soomi karaan oo hadday safarta ku soomaanna waa sax allahuma inuu dhibayo mooye hadduu soonku safarka kugu dhibayo markaa inaad afurto waa oo markaa waxaa noqonaysaa qoladii nabigu yidhi sal lla alay wasalam laysa min albiri alsiyaamu fi safar yacni wanaagga ka mid maaha safarta dhexdeeda in lagu soomo xadiidku wuxuu ku yimid qolo soontay oo soonkii ku rafaaday isla xadiidkii kale fii saxiixi muslim qolyo sidaasoo kale saxaabada ka mid ah oo soomay oo rafaaday ayuu nebigu sal lla lay waslam wuxuu yidhi ulaa'ika alcusaatu ulaa'ika alcusaa kuwaasi waa caasiyiin kuwaasi waa caasiyiin marka haddii ramadaanka safar adoo ah soonku ku dhibayo ruqsada qaado maxaa yeelay ilaahay wuxuu jecel yahay sida uu jecel yahay in casiimada la qaato waa waajibka asalka ah ayuu u jecel yahay in ruqsadan la qaato marka ruqsada haddaad xilligeedii iyo sababkeedii aada hesho fududaynta shareecada qaado hadduuna soonku ku dhibaynin safarna aad tahay caadi u soomi karto inaad iska afurtana waad heli kartaa inaad soontana waad heli kartaa in shi'ta fasum wain shi'ta faaftir waa kii nebigu ku yidhi sal lla alay sl saxaabika haddaad rabtana soon haddaad rabtana iska afur nebiguna sal lla alay wasalam safaradiisa qaar ka mida inuu soomanaa waa sugan tahay saxaabada qaar ka mida marka hadduusan ku dhibaynin waa iska soomi kartaa wallahu aclam hadduu ku dhibayana iska afur jazaaka allahu khayran sheekhana saa-iilkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu samankan jahli ruuxa ma loogu cudur daari karaa hadduusan ahayn qof markaa soo islaamay ama qof sabi ah zaman aan jahli iyo meeli uu ka jiro aan la helaynin ma jirto zaman kasta waxaa jira meel cilmigu ku yaryahay oo culimmadu ku yarta oo aqoontu ku yarta iyo dad jahligu ku badan yahay aqoontuna ku yarta xilli walba waa la helaya sidaas daraaddeed ruuxa la leeyahay jahli ma loogu cudur daarayaa duruuftiisa khaaskaa baa la fiirinayaa meeshuu joogo duruuftiisa wax la camimi karoo la dhihi karo zamankan jahli laysuguma cudur daari karo wax ka jira ma laha leanna wax weeyaan zamankii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo saxaabadiisii oo waxyigii degayo oo nebiga la joogaan ba marar fara badan waxaa ka dhacayay arrimo aqoon darra keenaysa oo loo cudur daarayay cilmigoo faafsanoo sidan ka badan ayaa haddana dadku jahli ku dhacayeen ama jahli sababtiisa ay ugu dhacayeen oo loo cudur daarayay marka way kala daran tahay mooyaane laakiin mar walba waa jiraa duruufahaasi khaasatan haddoo kale hadda nin kale hadda cilmigii waa faafay oo meel walba waa gaadhay sidaas daraaddeed jahli laysugu cudur daari maayo ninkaasi waaqicuu ka dhacsan yahay ummadduusan kaba warhayninba magaalooyinka midda cilmiga ugu fara badan uu ka jiro aqoonta ugu badan culimada ugu badan joogaan muxuu ahaayey haddaad gaadho darfaheeda xaafadaheeda haddaad qaar ka mida tagto jahli mutbaqa ka jira jahli mutbiqa ayaa ka jira marka masaladaasi masalo yani sidaa loo itlaaqi kara ma aha arrimaha noocaas oo kale ana haddii laga hadlayo dadka ehelka u ah waa dadka sicatul itilaac leh ummadda ka warhaya waaqicooda ogsoon ninun iska xamaasaysanoo qiiraysanuun hadduu iska yidhaahdo maanta jahli laysugu cudur daari maayo wadaaba shalay jaahil ahay ya nin baa siduu saa ugu hayay uu maalintii dambe masale dhex fadhiistay masale khatar ah ayuu dhex fadhiistay markaasaa lagu qabsadoo le sheekh soodiga gaalnimada dhex fadhiya markaasuu yidhi markaan tii hore lahaa jaahil baan ahaa oo soodigu yidhi jahliba laysugu cudur daari maayo ya soo la jiifiyaana bannaan maha anugu markaan ku dhacana jaahil baana
ummadda kale markay ku dhacdana cudurdaar ma leh adeer baasu jeebkaaga kuma jirta waay markaas mas'alo kaleeto weeyo marka ay culimmadu leeyihiin man nasha'a bibaadiyatin baciida aw qariib alislaam ruuxa ma islaamnimadiisu dhowdah mar dhow soo islaamay ama ma ahe baadiye ka fog magaalooyinka ku barbaaray dadka qaar baa waxay kaga dhigtay adeer baadiye ma ku kortay kalimatul baadiye qabsadeen jahligii aqoon darrada jirta iyo nusuusta culimada meesha khaldan ee la dhigahay mas'aladu mas'alo baadiye ma mas'aladu wax weeyaan xilliga culimadu hadlayaan oo hadallada ay itlaaqayaan ayaa magaalooyinka cilmigu faafsanaa jahliguna baadiyuhu yaalay طيب haddii magaalooyinkii jahli yimaado ka war ma adigu ma baadiyo maad ku dhaganaani mise muhiimadu waxay ahayd meesha cilmi ma yaalo aahaartii sunnaduna waa ka baaba'day magaalooyinkii hadday sidii baadiyaho kala noqdaan waa la mid xukumkii meesha uu soo galay anna al-hukmu yaduru ma'a al-illa ya wujudan wa adam meeshii laga waayo cilmigii ama baadiyaha noqdo ama magaalaha noqdo dadku waa loo cudur daari ilaa wax la baro wax loo sheego waxa ay jaahil ka noqdeen wuxuu doonay ha noqdo wallahu a'lam jazakallahu khairan shaqana saailkan wuxuu leeyahay waxaan la deganahay gabar agoon haysata maalin dhaweyd baan biyo isi markaasay waxay isiisay biyaha halka litir oo xiran kadib markaan cabay baan walaacay oo waxaan oo waa xoolo agoon baan isiri balse caagada lacagteeda ayaan wax u dhigantaan ugu iibiyay ciyaalkeeda sidaas ma iga gudmi kartaa xoolaha agoonta masaladii hadda aan ka hadlaynay intaana tan dambe u gudbin waxaan xusuustay xadiidkii sunanka ku yimid mucaad ibnu jabal radia allahu tacaala canhu ardaa mucaad ibnu jabal waa ninkuu nabigu yidhi sal lla alay wasalam aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam waa ninka dadka ugu yaqaanay xalaashiya xaaraantu ah waa ninkuu nabigu yidhi sal lla alay wasalam culimmada ummaddani markay kulmaan mucaad meel saruu saaran yahay in aqoontiisu aada u sarraysu ah ninkii nooca ahaa ayaa wuxuu tegey shaam markuu tegey wuxuu u tegey nimankii gaalada ahaa ee madaxda ahaa oo dadkooda iyo raciyadooda u sujuudayaan waa soo laabtay nebigu u yimi sal alla alay wasalam markaasuu sujuud la dhacay ya nebigu u sujuuday war mucaadow see wax u jiraan see wax gaayiin waa aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam markaasuu rasuul ilaahay kuwa aan soo arkay oo loo sujuudahayo adaa ka mudan in lagu sujuudo walaaduu sidhe soo masaladu kama qarsoomin markaasuu nebigu u saxay sal alla alay wasalam oo yidhi ilaahay keliyaa loo sujuudaa haddii cid u sujuudi lahayd dumarka ayaan amri lahaa raggooda inay sujuudaan laakiin ilaahay keliyaa loo sujuudaa soo ma u fiirso yacni aclamu nnaasi bilxalaal waalxaraam shubha ku dhalatay masale muhimaa ka qarsoontay nebiguna waa u cudur daaray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ya ninka marka waxa weeyaan kaarhka gaalaysiinta la ordahayeelo soomaali maanta cilmigii waa gaadhay saas daraaddeed wax cudurdaara ma leh oo darajadii mucaad miyay gaadhay soomaali maanta yacni waxa weeye masaa-ishaas marar badan waxaan leenahay ha loo noqdo usuushii salafkii ahlu sunnaha ooyaan lagu fududaanin meelahaasi waa meelaha ay dadka ummadda dhiigooda bannaysta ama gaalaysiiya iridaha ay ka soo galaan oo ay u maraan muxuu ahaay qaradkoodii ujeeddadooday ka mid tahay aada looga taxadaro arrimaha noocaas oo kale ah su-aasha xigta maxay ahayd nin la degan gabadh ilmo agoon haysata nin baa wuxuu leeyahay waxaan la deganaya gabadh agoon haysata maalin dhaweyd baan ribiyeysay waan gartay ninkaasi khayr allah siiyo uu ku baraarugsan yahay agoonta xoolahooda inaan la cuni karin waana sidaasi si lagu cuni karaayo ma jiraan haddii maamada ku siisay biyaha ee agoonley ahayd waxay ahayd inaad weydiiso oo tidhaahdo xoolahan biyahani ma agoonta xoolahoodii baa mise ilaan iyada lafteedaa laga yaaba inay xoolo leedahay soo ma ama waxaa dhici kartaba in lagu sadaqaystay marka taa iyada ah saamayn
محلقاسي أهيد حلقاسي أهيد إلا هو الصلاة هذه المسوى كذلك يقوي دينا مبيرك ويقوي هذا محوء هاي ويلاهدو gadaal ka weydiiyo ka hubsado hadii uu ixtiyaad iyo dadaal sameeyay oo biyihi intuu cabay kadibna uu caruurtii siiyay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan waxba loo haysan wallahu a'lam jazakallahu khairan wuxuu leeyahay sheekh Saa'ilkan assalaamu alaykum sheekh waxaan la deganahay dhalinyarta mid kamid ah ma tukado salaada subax waan kicinaa laakiin ma tukanayo marka sheekh qofkaas oo kale guriga ma la deganaan karaa shukran ruuxa hadduu tukado salaadaha hadduu tukado oo laga yaabo salaad iyo wax saas oo kale inay ragaf kafto ruuxaasi waa gaal lama dhigi karo waa ruux muslima laakiin caasinima hayso sidaas daraadeed baraarujiya oo nasaxeeya oo ka daba hadhina masalada isla deganaantii la saaxiibidu طبعا saameynteeday leedahay oo nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل روح صاحبك أيو للدين ودقنك يدين حمد وكو سامينيا روح والبها كفير صدق النبي صلى الله عليه وسلم عده ولا صاحبيه marka hadii uu diin xumadu ay heerka ka gaadhay inuu salaadii ka saxdo oo san danaynin inaad la joogto oo la seexato oo la saaxiibto oo saxma إن هذه اللفتة ذوك سامين كرا والنصيحة وحشك لكن صاحب كراس درس كلا كراس ضد كلا اللي تشوك تكراس سمارت السجنة نصيحة ده كلا دال أو نصيحة سكست هدور روح عاسوي وسكست أخلت بنية أفقي هاي نصيحة كولي جريد مع عبد الله البجري وكيلها في صحيح مسلم نبي جوحن بيعك لك عليه صلاة توسين تهذا سكذا بحين تهذا يروح كستو مسلم إلى النصيحة يعني واحد هالكاس على قارسية النصيحة ده الدين النصيحة واحد حديث تميم الداري مركا النصيحة وعقل حلية ولعل إنه إله تبارك وتعالى وكو أنفع وحاب يسكد كرتبة إنه يهاي سيدة ضدك قاركود منين إسكهور دوينه وهردada dhibaato ku qaba oo yani wax weey dadka qaar baa iska oo baashal culays wax badan laga sii hurdada culays badan ku hayso marka nooc cudur daar yeelan kala dadkaas sida xadiidkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ninkii saxaabiga ahaa xaaskiisu ay nabiga uga soo dacwootay waxay ku tiri rasuul ilaahay oo ninkaygu saddex arimood bay ku dacwaysay horta salaad subax uu ka seexdaa oo barqankii buu tukadaa waa mid labaad uu garaaca waa mid saddexaad soonku iga jabiya saddexaas ku dacwaysay waa loo yeeray war waxan ma jiraan waa jiraan rasuul ilaahay saddexduba waa jiraan oo maxaa dhacay wuxuu yiri waa runteedo horta salaada subax waan ka seexdaayo barqinkii umaan tukadaa sababtuna wuxuu yiri reer waxaan ka dhashay hurdo weyn sida nadaba barqinkii umaan kacana marka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri xilliga kacda tukaalay tii kalena wuxuu yiri gabadha waa runteed waan garaacay laakiin waxaan ku garaacay buu yiri suurada quraanka kam aan ka aqaanoon akhristo bay iga akhrisataa marka waxaan ka kari waayay na suuradahayga ii daabaan ka kari waayay markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wal adiga iyada way idin ku filan tahay quraanku gabadha daabaa la garaac tii saddexaydna wuxuu yiri soonkan ka jabiya waa sax maxay nin dhalinyaro baan ahay iyaduna waxay sameeysaa way iska soontaa soon sunnah way iska soontaa maalintii baan guriga joogaa waa u baahanahay marka aniga u baahan bay sooman tahay saas daraadeed waa ka dulboodaya soonkana waa ka jabinayaa taa iyada isaga lagu garsiiyo nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waa meesha ku imaanaysa xadiiska dhahaya haweenay uma banaana inay soonto ayadoo ninkeedii joogo soon sunna inay soonto ilaa idankiisa mooyee inuu u fasaxo mooyaane inay iska soonto maya marka
يعني meesha waxa ka muuqata nabigu sallallahu alayhi wasallam hurdaweynanka inuu meesha cudurdaar nabigu ka bixiyo sallallahu alayhi wasallam يعني wax lagu kala xtagi karo ma la dhigi karo nin kasto hurdaweyn ha iska jiifama laakiin waxa dhici karta oo suroobi karta ruuxaasi inuu yani noocaas oo kale yahay waxay dooniba ha noqotee una naseexeeya muxuu ahaayay xaqiisana wixii idin kaga iimaan lahaa iska ilaaliyo ka taxadara wallahu a'lam inta aadaanku ka dhiman yahay cuntada ma sii wadi karaa suxurta حديث خاصة مسألة كسو أروري أصلك وحويان أذانك ضمبئ إن سحورت اللقوة جوجيا أصلا وأنا آية القرآن كمعنا يكتصيصوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلهي كلا عدادان لبضا الليلا كلا عدان تودا إن أركيسو إن آذانك أتكو قرأت الله وضبوا saas daradeed baa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam aadaanka bilaal yuusan cuntada idin diidin laakiin ila uu ka aadaamo ibnu ummi maktum nin indalabu aha wa kana la yu'adhinu hatta yuqala lahu qad asbahta warwaagi waa bari ila lagu yiraahdo muusan aadaami jirin marka ninkaas aadaanka dambe aadaami jiray aadaankiisana cuntada lagu joojin jiray asalku waa saas لكن حالة نادرة حديث كسو أرورتي حديث كاسي وحديث عند أهل السنن كويمت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه متكين هديء آذان كما قالوا صغو ويلكي كعنتي سكوتشرو ويلكا كعنتي سكوتشرو يوصن لجن إلى حاجتي سكجت marka maxaa la yiri wal inaa'u fi yadihi weelku waa inuu gacantaada ku jiro cuntadii waa inay gacantaada ku jirto ama weelkaad cabayso waa inuu gacantaada ku jiro mid xagga yaalo oo raadsan doonto soo qaadanayso maya mid jikada laga soo wado la soo diyaarinayana maya waa mid aad bilowdo dhexda ku jooga waay gacantaadana ku jiro kaasi aadaanka intaan la dhamaynin baa wad kala tuuri kartaa Soomaa sidaas daraadeed waa xaalad khaas ah oo nusuusta caamka ah iyo khasisaya baa leeyahay xaaladaasi waxa xoojinaya athar kaleeto isagana yani xoojin karaya culimada qaar kamid ah ilayeen say laftiisu waa xasan oo Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wardaah ba maalin la soo nabiga la suxuurtay sallallahu alayhi wasallam suxuurtii oo uu gacanta ku hayo ayaa lagu aadaamay Umar markaasuu rasuulullaahi miska dhiga ma xaajadaada ka gudu ku yiri marka xadiiskan iyo labada xadiis iyo marka la isu geeyo waxay tilmaamayaan in xaaladda khaaska haday ku qabsato ka gaarsi laakiin wixii xaaladda aan ahayn raashin la soo ridan iyo mid la soo qaadan iyo mid la soo wado iyo mid ku ag yaala midna ma aha wal inaa'u fi yadihi wa weel gacantaada ku jira wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سائلكم وحليه هاي الشيخ متكو ما نجاسة مسوى طاهر منتقى مسايشي واقي هربوق يدو تاقنا منتقى إنو نجاسية هاي واسي علماء دو أبادينهم نجاسة نمت كيسا واسيدة لو أبادينها هاي وحين أود ليشانيان دليل خاص مالها وآيات قرآنية حديث مالها nijaasanimadiisa sheegaya laakiin waxay u daliishanayaan culimada badankood waxay leeyihiin waa shay caloosha gaadhay asagoo doorsoomayna soo noqday marka shay kasto noocaasana waa nijaasay leeyihiin wax daliilo khaas ah ku soo arooray ma jira nijaasanimadkiisa hal xadiis baa jira xadiis Abu Yaasir buu ahaa oo waxa jira daciifa bal baatil ah al-Imam an-Nawawi إمام الدارقطني إمام البيهقي أي مدى حديث كي وليب الشافعية ده وحيليه حديث كاسي وحشر معه وحديث باطل سقنين هل كان حديث باكرة إساقنا وركي سلامة هيو مسألة داسي مركا فقهادو ساوى أبدايهين إنو نجاسي هاي فإنك يسكر قيو كا قادنا ينا احتياط كا قادنا ينا لا بأس لكن مسألة خلافية والله أعلم
جزاك الله خيرا شيخ سائلكم وحول الشيخ الله أكو حفظيه هدان آبهي قرآن أخريو أجر كيس مقاريا هاي أبا وأخريها آبهي هدان قرآن أخريها دنتيها دنتيها قرآن ميد لو أخريو ومسألة إيضنا خلافية واحد دليل خاص الله ما هيو آيات قرآن والله يسميدتك قرآن وأخرية ما هين حديث نبي والشيخ يميدك قرآن الله أخرية ما هين انت أمركي لقى الريبانا صحابة دي علماء دي واسكو خلافه يعني علماء دي واسكو خلافه قارك قباء إن لو أخرين كرو وحي ليه هنا وقا قياس قادنا يان أعماش خير كسقناتي دليل كالي أنبو لمي ديها ومحا سقنا الدليل له وحا دليل للصدقة وحا دليل للدعاء وحا دليل لحجك وحا دليل لعمرة كواسي إن ميتك الله الصمين ويقاريان والله الصمين كرو أدلة إليه marka waxay leeyihiin quraaankuna wuxuu la mid yahay kuwa khayrka umbu la mid yahay halkaasay mareen qoliyaha dhahaya waa loo akhrin karaa qoliyaha dhahaya looba akhrin karana waxay leeyihiin waxan waa cibaado daliil khaas ay u baahan tahay hadii on loo akhrin karana nabigu waa sheegi lahaa sallallahu alayhi wasallam nasba ku iman laha sida yaani waxyaabaha kalaba nusuusta iyo adilada ugu timid ragga sida qaba waxa kamida on ogolayn oo dhahaya meydka قرآن الله أخرين ما يوحاكم إذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله وليسمع ذلك الشوافع يا شافعي يضوها مقلان صومالي دي شافعي ده إمام الشافعي مقب ميت قرآن الله أخرين يا من رأي واحد يجري معه من رأي يقول والله يا شيخ فرح بدنا محل يجري إيه أنا مارت كمان يالك هاي في دميه ورد صالح ميل ده هيسجن magacyada u badan uu kala duduway midba suurada khaas ah akhriya marka masaladu iyadoo khilaafiyada hadana imaam shaafi'i alayhi rahmatullah wuxuu kamid yahay culimada qabta maya wuxuu daliishanaya wa alaysa lil insani illa ma saha ayadaas uu daliishanaya almuhim waxa fiican sideedaba shaygu haduu yahay wax ka qarsoon oo aad wax ku rabto wax la hubo la qaataa wax la hubo baa la qaataa marba haduu muran galay daliil loo haynin waxaad uga leexataa wixii la hubo oo sadaqa ah ya oo xaj oo umra ah khayraadka kale oo ducada ah khayraadka kale nusuusta leh u leexo yada la huba tan muran ku galay Soomaha inaad iska deysahabo haddaad se ku qanacdo oo raayiga kale culimadu qabto waa loo akhrin karaa aad ku qanacdo ruuxu uu akhriyo dhimale waliba ragga qaba in loo akhrin karo oo uu gaadhayo waxa kamida Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamida Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ayaa kamida wuxuu leeyahay sida daacaadka kale ayuu la mid yahay oo quraanka waa loo akhrin karaa dadka dhintay marka haddaad raayiga ku qanacdo daliil ahaan ugu qanacdo ama culimadii aad ku qanacsantay ku weydiisa aad saa ku yiraahdana u akhrido dambi ma aha markaas ma gaaraya mise gaari ma waa mas'ala kale laakiin dambi ma noqonay wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سائل كان دور سؤال soo qoray su'aasha koowaad wuxuu leeyahay sheekh muxuu yahay xukunka cabitaanka Coca-Cola iyo Pepsi-ga su'aasha labaad haday jamaacada ku dhaafto kaliya ma tukanaysaa mise waxaad la tukanaysaa jamaaca kale su'aasha saddexaadna waa tii muxaadar laga dhigay xukunka qishka fil imtixaanaad muxuu yahay afiiduni fadakumullah سؤال شهره Coca-Cola iyo Pepsi Coca-Cola iyo Pepsi cabitaankeeda maxaa ku jira maxaad ka dhex aragteen diga wule ajaib waa boodaysa andhuufay tuuraysa kula Sheikh Mandera masasa fatwadiina idin Mandera masasa laga fatwada aba ku jira madha mas'aladaasi Coca-Cola iyo sharabaadka la cabo soodooyinka
wixii aan wax khaasa lagu ogeyn asalku waa xalaal wixii aan wax khaasa lagu ogeyn maadadan ghazaadkay ku jirtay boodaysa cilo uma aha xaraamnimo cilo uma aha yani waxaa keeni lahaa xaraamnimada waxay ahayd inay wax sarqaamiso soo ma sheekhi sarqaanka keeni lahaa laakiin boodboodidaasi dhib male iska boodbood yani waa ghazaad waxa dhibana male haddii markaasi aan maadaday ka samaysan tahay haddii aan wax lagu ogeyn ama ayna ka soo bixin wax shareecadu ayna ogolayn oo xaraama salaadkooda sharaabyada la cabon bay ka mid nacam su'aasha labaad salaada jamaacada haday ku dhaafto tusalli wahdak am salaada jamaacada haday ku dhaafto masaajidka timaado ma kaligaa baa tukan mise jamaacad la tukan haddaad jamaaca heli karto la tukan haddaad weydana kaligaa tukan masalo khilaafiya waa cinda salaf ayma badanna ay dhaheen waa karaahiysanayna oo sida ibnu taymiya waliba soo naqliyay imaam shaafiicina uu ku qoray kitaabkiisa umka ah jamaacada labaad ee masjidka raatibka leh jamaacada labaad waa karaahiysanayna salafkuna waa karaahiysan jiray bay dhaheen jamaacada labaad macnahaas culimada qaarba meel bay saareen oo qaar waxay yidhaahdeen dadka la karaahiyanayo jamaacadooda labaad waa dad caadaystay oo dhaqan ka dhigtay qaar waxay leeyihiin ma ahe waxa laga wadaa waa dad mucaarado iyo khilaaf wada oo imaamkan iyo salaadan dadka ay ku xidhanayaan bayba ku kacsan yihiin saas daraadeed bay gooni inay u tukadaan oo jamaaco kala samaystaan halka qoliyaha marinaya qoliyana waxay leeyihiin aslanba jamaacadii hore waxaan ahayn masaajidka jamaacaadkan dambe lama ogola waxaa iyada aan hadal ku jirin jamaacada ajirku ku soo arooray ee laga helayo ugu yaraan 25 ama 27 ajirka ee laga hadlayo waa jamaacada hore waa mid hore ee masaajidka ku tukanaysa waa kuwan dambe ma lagu tukan karaa sida mise laguma tukan karaaba laga doodayaaba ma lagu tukan karaa mise lagu tukan ma ajirka jamaacadaasi qaybsamo ajirka jamaacada laga helayo salaada jamaacadana waa noqdaa waxa kale uu noqdaa ruuxu soo socodka uu soo socdo masaajidka uu soo socdo ayadana waa ku jirtaa marka laba gooraba ajirkii jamaacada ee xadiista lagu sheegay waa jamaacada hore kuwan dambe ruuxu ma ku tuma u banaanta mise uma banaano waa aymadaasi waxay soo guuriyeen arinta iyada ah waxaase jira xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi maalmaha kamid ah soo masaajidka fadhiya ayaa nin baa salaad agtiisa ku galay markaasuu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam rag saxaabadiisa oo ag joogay wariyaa ku sadaqaysta buu yiri kan wariyaa wax ku sadaqaysta nin baa istaagay oo la tukaday oo jamaaco u noqday oo ku sadaqaysta halkaas ay culimada qaar kood ka qaadanayaan waxay leeyihiin jamaacadii hore tukatay buu ninkani yimid nabigaana sallallahu alayhi wa sallam nin kale yiri la tuko qoladii ra'yiga hore qabtay way ka doodayaan xadiiskana waxay leeyihiin waxii aan ka doodayna waxa way salaad farad lagu xidho laakiin tani waa salaad sunna oo salaad farad lagu xidho ma bahaba baabkan ka hadlaynay adigu mas'aladu muran badan iyo dood badan baa ku jirtay laakiin adoo masaajid soo galo jamaaca tukanayso hadii aadan caadaysanin markaan aad furqiyo umada qaybinteeda u jeedin jamaacada la tuko jamaacada la tuko inaad isaga leexato aad meelhaaga kale isaga tukatana waad heli kartaa oo xadiis baa jira nabigeena sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida ayaa salaadii baa laga hor tukaday awl buu ku soo daahay uu ku maqnaa waa laga hor tukaday isagii saxaabada qaar kamid salaadii oo laga baxay oo masaajidka laga dareerayo buu soo galay markuu arkay masaajidka oo laga sii baxayo ayuu iska laabtay guriyaha kamid ay tageen oo salaadooda ku tukaday masaajidkiiba waa kala leexdeen waa adilada loo dalishaday kamid tahay marka isku day inaad jamaacada hore soo haleesho hadaad haleeli weydo waa ra'yi culimada qaar kood qabaan inaad la tukato jamaacada aad hesho waa mas'ala khilaafiya way wallahu a'lam حكم الغش في الامتحانات حكم الغش في الامتحانات الغش في الامتحانات حكم الغش في الامتحانات وصو شيغني محاضرتي هوران ku sheegnay Soomaa imtixaanka dhaxdiisa inaad غش samayso waa xaraan sida uu leeyahay Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Uthaymeen culimada sunnada kibaartoodu ay leeyihiin laana waxa weeye xadiidka nabigu markuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam man ghashana falaysa minna ma kala qaadin nabigu sallallahu alayhi wasallam
روحي نقشة نقمد معها شهادة الامتحان كأد كو جليسو امتحان كانت غشك كو جليسو شهادة أد كو قادن دونتو يا شهادة دا سوى شهادة أد شقة كو هلي دونتو سوما طريقة دو صمرت وطريق خلطان شهادة وشهادة بيانات سوما شقة هذا حد وتو حلقة والصامين يكون يلا حديث باب كان لحري وايو وغشك الله فصحوه امتحاناتك وحصوب حي بري ضد شهادوين وتا شهادوين كأقون تدين عن لهين دخاتير وحصوب حي بين ورجع ضد كلينا يا سوما عايز ها تضبط نختار إسكايلا فصوب حي شهادة بين وتفالسة هي ورنبق يعني غش كسومري يا وميد وحصوب حي إنجنير فالسو بين ورجع قريها ينقدو من سوزاس ما قري دواقيو بين ونور إساهيا ومدو بقدر الفريزم ما أنت ضم سيداس درادة أرنتن يعني امتحانات كي الشهادات كو اعتبار علوص بيلاده خاصة وقت كان هذا اللي تشوفه والروح أقونتي سيكترجمة يسا شهادته معنى ساسوا امتحان كوان صومري سيسحان كصومري أقونتها وان ليه هاي ساسو شقكو هليا ساسو مدة أقو خدمينيا ساسو محوها هاي اللي قولوا معاملونيا ساس درادة غشك امتحانات كو وحاران وحي سيداك وقصوا قالنا وحاران والله أعلم جزاك الله خيرا أختي جاية وحين وقت لمن تبنتق إن شاء الله وحلية سائلكنا السلام عليكم سلام كدب هدي أنيقو إسكا جيريا معناها كتحدريا بيو كما يقول تغان صون كميو إيجا تبايا مركان ويسقادنا يو أوكالي مركاد ويسقادنا يسو وحال الرباء هذا صومن تهي إن هذا لغلق الشضي يصندار سيكوحي اللي يرانن حديث كي لقيط ابن الصبرة عند أهل السنن وكي النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما صندار سيكوحي اللي يروه آد بيها أوتشيد إن هذا صومن تهي مويه هذا صومن تهي بيها سنك آده أوتشيد لغلق الشضي آده قد تحدر طبعا لغلقان كرتا وعقدو زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي يقول رسول الله وحاس كيجا مردون كان كرا أنا صوما ورجاسو كير كورنا هذا صوما لغلقته هذا ما لبر هذا تاتابش هذا إيو دونك شد واللغلق شبول يا لقي دينا وهوش الضمب صوصاس ما مركا لغلق شد يسندار سجى يواسح لكن هكو حل دراني haddii aad samayso oo ay biyuhu kugu tagaan soonkii ma jabaya adoo taxadaraya oo ku tala gashanayn haday kugu fakadaan ma jabayo maxay xagay soo galaysaa la tu'akhidna in nasina aw akhtana bay soo galaysaa waa ku tala galaan sooma yani halmaanka iyo ku tala galaanta wixii kaaga dhacay isku baab waay inna allaha tajawaza li ummati عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه halmaanka iyo wixii ismoostis u dhaca iyo wixii lagu qasbo ummadayda ilaahay waa ka dhaafay wallahu a'lam jazakallahu khairan sheekh zailkan wuxuu leeyahay sheekh ilaahay dartii baan ku jeclahay allah ku xifdiye hadii aan dhaho buu yiri gabadh iga ajnabi aan ku dhaho hadallo amaan ah sida qaaliyay sharafay quruxay iyo wixii lamid ah soonkayga muxuu u dhimayaa محمود دمية مسه مدن بيبا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم هويني أجنبي كاء ونحاس كاقي أهين وهو يدع عن أهين والمحرم كو أهين قال يا شرفي محاكو قلي هذا يا معاني قول ماذا وقتيني معانت وهذا الله خلد هو مناسب معه صوما يعني هذا الله نوع سوكلا وهذا الله فتنة يا آفة أبو ريو هذا الله واكليين هذا الله حاجة حاسس كالله قلت لك عليه يا ورير كاقولي وحاجة هذا الله قلت لك عليه والدين تيو وهذا الله احترام وحاجة هذا الله قلت لك عليه ذاتك أجنبي كا هذا الله نوع سوكلا وحي فريان فتنة فريان لا دنك إن دمر كين كي ما دان صح معها
sida ilaahay dumarka markuu la hadlayo ku yidhi falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi marad hadalka ha jilcinnina ha dabcinnina oo midka damacu ku jira iyo hungurigu uu markaa damco midka qalbiga ka jiran ee qalbiga cudurka shahwadu ka hayo ayaa damacgelaya wakadalika dumarku waa kasii jilicsan yihiin ragga soo ma meesha la leeyahay dumarkii hadalka ha dabcinnina si aan ragga hunguri u gelin ya ninkii hadduu dabciye ka warrantii ka qalbi jilicsanayd hawshu waa kharimaysa meeshaana waa meesha laga taftaafay dhalinyaro fara badan oo isku kharibantay ya meeshaasay ka bilaabatay waatay culimmadu yidhaahdaan nadratun faibtisaamatun faliqaa'un famawcidun faliqaa marka ugu horraysa safiirka iridda fura waa isha marka ugu horraysa iridda furto aabodha iyadaa soo saamisa markay ishu ay furto kadibna muusood iyo waxaa ku xiga iyo qosol kadibna markii laysu muusoodo waxaa ku xigta in la ballamo soo ma kadibna kulankii baa ku jira kadibna xaajadu qadhaadhaatay soo saas ma saas daraaddeed hadalkan macsuulka ah waa nooc aafa ah diintuna ma ogola adoo sooman naaga ajnabi ka haddaad warkaa ku tidhaahdana shaki ma laha inaad dembi gashay ood khalad gashay wabitaali soonkaaga saamayn bay ku yeelanaysa ajirkaagii waxbaa go-aya waxbaa lagaala tegay wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahy sheekh waan ku salaamay salaan kadib islaan aan furay hooyadeed gacanta ma ku salaami karaa su-aasha labaad islaan aan furay oo aan rabo inaan ku noqdo markhaati ma u baahanahay islaan aada furtay hooyadeed gacanta ma ku salaami kartaa jawaabtu ahaa yacni islaanta sodohdaa ah waa maxram abadi ah waay ama gabadheedii wada jooga ama kala taga abidkeed bay maxram kuu tahay sidaas daraaddeed gacantaad ku salaami maxram baad u tahay waad la safri xajkaad geyn cumradaad geyn waa maxram weligeedba ma go-o maxramnimadeeda taasi waa midda labaad waa islaamtii aan furay markaan ku noqonayo markhaati miyaan u baahnahay qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu ku sheegay markhaati geliya ya markaad soo ceshanaysaan dumarka markhaati u sameeya amarka qur-aanku waa kaa laakiin ma laazimba culimmada in badan waxay qabaan laazima hadduu ninku reerka ku noqdo xaaska ku noqdo markhaatina uusan u samaynin way soo noqonaysaa bay leeyihin oo waxay leeyihiin markhaatigelintu waa sunno ee waajib maaha ruknina maaha waa un sunno haddaad inaad samaysa ay ahayd haddiise aad ka tagtay ku noqoshadii waa asaxaysaa waana xaaskaaga intaa mid ka sii daran bayba samayna culimmada in badanay leeyihin oo waxay leeyihiin haweentaadii aada furtay ilaan reerka marka aad kala tagtaan dalqadda koowaad iyo ta labaad haddii aad ku kala tagtaan wayna dalqadihii kaa dhammaanin inaad guriga wada joogtaan baa idiin bannaan sariirunbaydaan ku wada seexanayn laakiin gurigaad wada joogaysaan weliba si laysu soo ceshado haweentu inay isqurqurxiso ninka hormarmartaa fiican ya oo muxuu ahaay ay ninka weyrixiso weyrix baa la dhahay in la weyrixiyo marka waxay leeyihiin xaaladda noocaas oo kalea hadday dhacdo isaga oon afka kaga dhawaaqin soo ceshi inuunta qalbiga ka niyoodo uu aayar uun maaragtay shaqadiisa qabsado oo uu galmoodo hadday dhacdo waxay leeyihiin niyada iyo galmadaa ficilkaa hadday isqabsadaan afkii isagoon kaga dhawaaqin wuu soo ceshadayba wahuwa almadhab saxiix yacni waxa weeyaan waa u galmooday niyadiisuna ku noqoy ahayd xaaskaagii waa soo ceshay ah isagoon af kaga dhawaaqin buu u galmooday galmadaasi soo ceshi bay ka dhigantay sidaas daraaddeed yacni sida loo badan yahay shardi ma aha markhaati gelintu marba hadduu qirsan yahay ninkiinu soo ceshaday wallahu aclam saa-iilkan sheekh wuxuu leeyahay sheekhow
su-aasheedu waxa weeye qof dumar ah oo aan soomin bil ramadaan ah ayaa u soo galay soonkii labaad ee kan ah marka soonkiina wuu bilowday kii hore maxay ka samaynaysaa soonkan ha soonto kan markay dhammaysana kii hore ha qallayso intaa unbaa laga rabaa fidye ma laasimaysaa imaamu shaafici imaamu axmed waxay leeyihiin fidye iyo raashiin baa la raacinayaa laakiin xagga adilada marka la fiiriyo wax nasa ma laha raashiinkaas yacni aahaar bacd saxaabaa jirta laakiin daliil marfuuca iyo xadiis ma leh aayad iska baddaa marka sidaas daraaddeed qallaa laga rabaa mas'alo labaad ramadaanka kale inuu u soo galo iyadoo kii hore lagu leeyahay hadday cudurdaar ayna lahayn oo iyadoo soomi karto qallayn kartay ay dayacday ilaa ramadaankii kale soo galay halkaana dembi baa ka dhashay towbad baa laga rabaa haddii ay cudurdaar lahayd sanadkoo dhan sidaa ramadaankii kale ku soo galay markaa dembi ma leh qallihii unbaa laga rabaa haddayna cudurdaar lahaynna waxaa laga rabaa towbadna waa laga rabaa qallihiina waa laga rabaa wallahu aclam sheekh xuseen muadin baa su-aal keenaya wuxuu yidhi sheekh xuseen kaale hadda sheekh xuseen wuxuu leeyahay tusbax waagii hore waa bidca la yidhiyo gadaal dambana mid reer magaala soo baxay oo lagu laabtay oo dadku faraha ugu jiro mishiin yar oo wax lagu tiriyo tusbaxu waa laba midka xaragada oo la isaga xaragoodo kaasi waxa weeyaan wax cibaada iyo shaqo kuma leh xariifiinta iyo ragga xaragooda qaata laakiin tusbaxa cibaadada loola qastaay ee marmarka qaarkood inta laga badbadiyo sida misxaf oo kale la gaadhsiiyo xataa dadka lagu dhaariyo tusbax baa dhulka loo dhigaa ka tilaabsaa la dhaha ma tilaabsan karo soo ma yani heerkaa markuu gaadhsiisan yahay waa geed markaasi laga badbadiyo oo la gaadhsiiyey heerkiisa heeraan ahay asal ahaan dikriga alle tabaaraka wa tacaala markaad tirinayso horta dikri la tiriyo oo tiro go-an leh oo 100 ka badan ma jiro masaladaa qabsada dikriga 100ka ana hal meel buu ku yimido yani waxaa ka mid ah nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu maalinkii 100 goor buu istakfurlaysan jiray inta ugu badanay soo aroortay waa 100kaas wixii 100kaa ka badan haddaad ilaahay xusayso inaad tirisaba uma baahna ya allay u tirsantay adeer adig iska wad ya kuwa waxaa jira looguba talagalayba inay qoraan oon shaqo kaleba lahayn oo halkan kaa saaran saas daraaddeed adiga maxaaba isugu lugaynba iska wad iyagaa qoranahay ilahay bay u taala waa midda uu leeyahay cabdullahi bn mascuud radia allahu tacala canhu ardaa saxaabigii jaliilka ahaa qolo wuxuu soo maray wada fadhido oo digriga tirinaysa subxaan allahi dhaha tiradaas alxamdu lilah soo tiriya subxaan allah soo tiriya allahu akbar tiro un wada markaasu wuxuu ku yidhi waxaan kala garan lahay inaad irid bidca furateen iyo inaad nebi maxamed iyo saxaabadiisii ka khayr badantihiin mise saxaabada ka khayr badantihiin labadaa kay tahay baan garan lahay markaasaa waxay yidhi abu cabdiraxmaan oo maxaad masalada noogu kalax tegaysa annagu khayr baan u jeednaa maxaa hadlayna markaasuu yidhi imisaa khayr doonaysoon gaadhayna adeer khayr baan rabaa keliya khayr laguma helo khayrka waa inaad jidkiisa marto sooma markaasuu wuxuu ku yidhi sayi-aadkiinna iyo dembigiinna tiriya ya daacada inaynan dayacmin anaa idiin ballanqaadayee sayi-aadka iyo dembiga tiriya soo ma waa bini aadamka sidaa khayrkuu tirsadaa laakiin dembiga ma tirsado soo saas ma marka khayrkan allay u tirsan yahaye midda la rabo inaad ka noqotay inaad tirisa u baahan waa dembigaaga marka daacada iyo dikriga tirintiisa ilaahay bay u taallaa wixii ku soo arooray tiro go-an tiri oo maalan waxaa ka mid ah salaadda markaan ka baxno subxaana allah 33 goor alxamdu lilah 33 goor allahu akbar 33 goor ya laa ilaaha ila allah 100 kaga dhig waa tiro go-an soo ma marka meeshii tira ku soo aroortay tirada ku koob
meeshii aan tiro lahayn shareecadu waxay tiro la'aan u dhigtay baa maslaxa ku jirtee daa faraha ka qaado afka uun ka wad halkaa waxay ka saaraysaa shubha la yidhaahdo dadka markaad tidhaahdo war nebiga sal alla alay wasalam xadiidkii abu daawuud iyo wuxuu yidhi faraha isticmaala yacni anaamish xubnaha faraha isticmaala oo iyaga dikriga xuska ilaahay ku sameeya dumarka markuu la hadlaya nebigu sal alla alay wasalam maxaa yeelay fa inahunna mustantaqaat iyagaa laga hadlinaya maalinta qiyaamada wuxuu ku leeyahay sheekh farahani waa ku wareerhayaayoo ma keeni karo tirada yaa tirsa ku yidhi waxaad ku wareeraysaba in la tirin karaa loogu talagalay intaasina faruhu waa ku filan yihin inta kale faraha badan soo maha ha tirinina iska wad ilahay bay u xisaabsanta saas daraaddeed tusbaxow meel ma lihid soo ma mishiin yaroo la soo qaadayoo la wadayow meel ma lihid wax wara kuuma yaallo soo ma tusbaxa markii la sii dabagalo soo maha warkiisu waa dheeraanaya laakiin aan intaa kaga hadhno aan iska dayno wallahu aclam